Postage train ee ku taala Short Hills ee gobolka New Jersey ee dalka Mareykanka ayaa waxaa ka dhacday dhacdo qosol badan. Arbacadii 17 July kadib markii gobolka ay ku dhufteen roobab dabaylo wata oo aad u xooggan. Roobabkii tirada badnaa ayaa waxay biyo dhigeen jaranjarooyinka tareenka looga dago. Waxaa goobta soo istaagay nin labisan oo wata dhar madow oo sugaya qof gaarsiiya tareenka biyahana dhaafiya. Waxaa aad ugu faafay baraha bulshada muuqaal uu ka soo muuqanayo ninka labisan oo sugi karila qof biyaha dhaafiya si aan kabiisa ugu qooyin. Haweeney wadatay dalada roobka ayaa soo istaagtay goobtii, dhabarkeedii u leexisay si uu u koro, oo dhabarka ayuu ka sii koray, biyahana way dhaafisay. Labadan qof xiriirka ka dhaxeeya cidna ma garanayso. Ninka ayaa ka baqaya inay kabihiisa qoyaan. Dhacdadan la yaabka iyo qosolka badan ayaa dunida si weyn looga hadal hayaa. Shucayb Xasan Maxamed.